xarunta xanaanada kobcinta garaadka iyo barbaarinta caruurta ee ayatiin gaalkacyo ayaa waxa ay qabatay barnaamij loogu magac daray maalinta furitaanka albaabada xarunta, taasi oo loogu talagalay in waalidiintu ay soo booqdaan caruurtooda isla markaana ay keeni karaan waalidiintu caruurtooda jecel inay wax bartaan, taasi oo ay barbar socotay dhiirigelinta ubaxa ayatiin. Marwo Caashe Axmed Xuseen waa maamulaha xarunta xanaanada barbaarinta iyo kobcinta garaadka caruurta ee ayatiin, waxa ay ka warbixisay barnaamijkani ay maanta qabteen iyo waxyaabaha xaruntu ay qabato. marka maanta waa maalin ku astaysan maalin xarunta albaabada ay u furan tahay, lana soo dhaweynaya dhammaan waalidiinta jecel ilmahooda inay helaan waxbarashada dhallaannimada hore iyo midda asaasiga ah, saddexda fasal ugu horeeya, koowaad iyo labaad iyo saddexaad. sida aad u jeedaan caruurta waxay qabteen activity kala duwan, waxay sameeyeen yani waxyaabihii ay barteen hadday ahaan la diini maadi maskax korin inay soo bandhigaan. inta badanna dugsiga ayatiin waa dugsi ku asaysan yani cunuga asagoo yargaraad ahaan iyo caqli ahaanba in loo koriyo. dugsiga ayatiinna waxaa weeye hadafkiisu bedelidda dhallaanka oo dhallaanka laga dhigo mid hal abuur leh, talent leh. annaga markaan wax baranayna waa la dili jiray, laakiin caruurtan waxa way cidna dili mayso, in talentigooda la koriyo, in yani waxa way diiniyan iyo akhlaaqiyan loo dhiso, in caruur wadaniyiin laga dhigo. qaar ka mid ah dadka ka warqaba xarunta iyo waalidiinta ilmahoodu ay dhigtaan xarunta xanaanada kobcinta garaadka iyo barbaarinta caruurta ayatiin ayaa waxa ay ka hadleen isbeddelka ku yimid ilmahooda iyo sida ay u garab taagan yihiin xarunta. markii ugu horeysay aan xaruntan imid waxay ahayd 6 bilood ka hor, xarun la mid ah wali oo yani markaa anoo dhowr isbuuc markii hore ku wareegayay magaalada oo fiiriyay meelo badan, xaruntii ugu horeysay aan arkay ay tahay oo qaab xanaano caruureed ama waxa reer Yurubka lagu yiraahdo kindergarten u habaysan. runtii aad bay ii cajabisay, waayo caruurtu markii ma aragtay dugsiga quraanka la geeyo ama maxaa la dhahaa dugsiyada kale ayagoo yar yar lagu bilaabo ay arkaan xataa caruurtii kale oo la dilayo oo la garaacayo, qofka waxa ka dhimanaya damiirka waxbarashada iyo waxa ka dhimanay baqadin baa lagu abuuray caruurtii. cunugii baqadin buu wax u baranaya, laakiin u baran mayo maxaa la yiraahdaa si ma aragtay asaga anfacaysa. waxaan ka mid ahay waalidiinta dugsiga ayatiin, waxa ay dhigto ilmo yara. waxaan aad uga mahadcelinayaa soo dhaweynta quruxda badan iyo iftiinka aan arkay, uga mahadcelinayaa dugsiga ayatiin. waxaan arkaa wadankeena hadeer inuu helay tooshkii aqoonta. waxaan si gaar ah uga mahadcelinayaa Marwo Caashe Gaastir iyo maamulka ayatiin oo maxaa lahay waxaan wadanka maxaa lahay gobolka ku nool gobolka Mudug aan hore uga jirin in caruur yar yar wax la baro, la dhiirigeliyo, maskaxda laga koriyo, ayagoo wax la barayana aan la dilin, si wanaagsan oo waalidnimo ku dheehantahay loola dhaqmo. ugu dambeyntii ardayda wax ka barata xarunta xanaanada kobcinta garaadka iyo barbaarinta caruurta ayatiin ayaa waxay halkaasi ku soo bandhigeen waxyaabihii ay ka barteen xarunta. أحمد جامع علمي أحمد عانو ورك وربعين SBS قال كعيو.